بسم الله إنا لله وإنا إليه راجعون. صاحبكي walaalkay oo aan dadooda isaga dhaweyn maxamed xasan barrow waxaan leeyahay qabrigiisa Allah u nuuriyo waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto waxaan leeyahay jannadii firdawseed Allah ka waraabiyo maxamed xasan barrow taariikh nololeedkiisa mid la koobi kara ma aha mana soo koobmayso waxaan rabaa oo kaliya inaan u tacsiyadeeyo oo aan ugu tacsiyeeyo koow hobladii waa bari uu ka tirsanaa intooda hadda ila fadhisa iyo inta iga maqanba waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo waxaa kaloo ugu tacsiyeynayaa reer xasan cali barrow oo ay faadamo ugu horeyso cali maxamed geedi oo iyaga imanka goobtii fadhiya waxaan leeyahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo waxaa kaloo ugu tacsiyeynayaa reer saciid maxamed saciid xarawo oo ay ugu horeyso liban waxaa kaloo ugu tacsiyeynayaa caruurtiisa xasan shukri iyo nasruddin oo aan aad u rajaynayo labada wiil waaban hubaa gabadhan inay timid waan rajaynayaa hadda ay meesha joogto ayana waan u tacsiyeynayaa saaxiibo badan baan waynay macallimiin badan baan waynay oo ka horeeyay maxamed laakiin asaga saaxiib nagu dhow buu ahaa isku lood baan ahayn ama isku waqti sidaas darteed geeridiisa waa geeri nagu dhow waa geeri nagu dhow oo xanuunna lagu leh waxaan magacayga iyo kiinaba idinku weydiinayaa saxaafada idinkana fan baad tihiin saxaafada iga soo horjeedo iyo waa barida dhabarkayga joogto iyo gabdhaha xaggaa ka muuqana dhammaantiin waxaan idin weydiisanayaa walaalkeen maxamed xasan barrow inaad cafisaan